dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa oo Somali TV maanta mikrofoonka la dhex qaaday ayaa aan isku daynay bal sida ay dadweynuhu u arkaan in mar kale wada hadaladii Somaliland iyo Soomaaliya uu dib uga furmo magaalada Djibouti ee caasimadda dalka Djibouti kulankan oo la filayo in saacadaha uu soo socdo uu ka furmo caasimadda Djibouti gaar ahaan madaxtooyada dalkaasi ayaa dadweynuhu ay siyaabo kala duwan ay uga hadleen إلهي ما يمدعني سبحانه وتعالى إلهي ما هذكر سؤال شاد اللي قاعد له يوم لو وضح ذكر السومال لأن يسمون هذا مصبح برنا ونوي يا يحلي السومال اللي ما هذكره مرنا وكوس السعودة شلي يحلها السومالي اللي ما هذكرنا ما أنت لسه ما تربط بركة لسه جوهري لا وضع اسمه قلال لا وضع اسمه قلال موقف كالسومال هو من أما حمر ووي أما دجبوتي ووي هذا يكون هلا موسى أنا ما درت حكم الشكر نواك هذا شري لا كنت قبضات بقبض كنت قبض فرماج وكذا واحد كلام الشكر لا هذا ما إنه لا هذا ما إنه ساكن إنك جوهر يا أرض يبوه والله ما أساس كليه بدك كداري ومدن واللوردنت أما فرماج هم هنا جاي أما تجبوتنا واترن إنما ما أقرب إثيوبيا نود وتلاوي إنما أقرب وات إنه أقول ما شفت إلهي ما أقول إلهي أمينه إله بقول سنة نشرن أما ينشرن هنا وقال ما قال سا تذكر كتجي أنا وقف كلي وقت دعاء قف شخصي أدنى أدن ما أقول لك هذا كنا دعاء كذي لكن تذكر ولا ملع حنطت ودياش ده كلا كوب سعر بكل نقطة والعين من عقد انتهاي أنا وركي وحوي مهمية اللبارية مستقبل كذا يرد ما أنت جامعة يسكول هذا كغلن شبيسي سيد المستقبل كده أقول له من سيد ذلك أنا نقول لا دل ما ضحبنان marka inaga dambe inoo ugu jirto wada hadalka Soomaaliya iyo Somaliland balse waxaad ogaataa in tuurta lagu qaadi karin dalkan Muuse ma qaadi karo Faysal Xaraamana ma qaadi karo Cabdiraxmaan Cirana ma qaadi karo ka guurtida haystana ma qaadi karo Siilaayi degayna ma qaadi karo dalkan dad baale eeganaya madaxweynuhu waa hogaamiye balse Soomaaliya ma geen karo inuu khasbi karo Cabdiraxmaan baa tagay isagoo Soomaaliya madaxweynaha wixii ka dhacay waa looga dib uu soo noqon maanta waxa weeye yeynaan inagu isnuunay waxa weeyaan Somaliland cirka hadii la tago iyo dhulka hadii la galo danta Somaliland Soomaaliya ku maqantay iyada wax nagu kala daadsan yihiin hadii xuduud iyo siyaasad lagu kala taga xataa Soomaali waa dad iyo wadal iyo dhasheed waa inaan iyo abtigi meel ay ku kala tagayaan ma jirto Somaliland haday doonayso dunida aqoonsi inay ka hesho midowga Afrika iyo afka ugu jirtaa baa leeyahay taasi waa been saxarihi Maroko way aqoonsadeen maxay Somaliland u aqoonsan waayeen Soomaaliya ku oodeen Soomaali intii la doonayay in xanaaqad iyo xanaaq laga dhaxabuuro dhici mayso Soomaalina istili mayso halkaas heshiis ku tahay haday kala maqnaatana sidaas heshiis lagu yahay hadii la wada joogana sidaas heshiis lagu yahay laakiin waxaan leeyahay wada hadalka wadadeedaha la maro hadii aan fikirka madaxweynuhu safarka ku baxay yani kurmayaan farmaajo iyo madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxaan fikirkay ka aaminsanahay madaxweynaha Soomaaliland inuuna halka uu tagay inuu nooga keenayn war Soomaaliland kullida oo ka soo horjeeda yaan ka aaminsanahay Muuse Biixi waayo laana sababta Muuse Biixi waa nin Soomaaliland soo halgamay oo gidaar soo seexday taa markaa waxaan leeyahay shacabka Soomaaliland inay isku duubnaadaan oo iyagu hal mid haadana meel ka soo wala jeesto wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland ee ka dhacaya wadanka Djibouti wada hadalladaas waxaanu aad iyo aad ayaan u soo dhaweynaynaa waxaanu ku kalsoonahay madaxda qaranka madaxweynaha gudoomiyaha guurtida iyo dhammaan xubnaha kale ee Somaliland uga qayb galay aad iyo aad baan ugu kalsoonahay aad iyo aad baanu nimanka ugu hanweynahay waar dadkii aanu dooranay waxaan ku kalsoonahay inay ka soo midhalin doonaan inay halka ka keeni doonaan guul iyo gobonimo inay ka keeni doonaan baan aad iyo aad ugu kalsoonahay Cabdi Rashiid Cali Barre Somali TV Hargeysa